waxaa laga yaabaa go'aan la'aantaada 10 bari ugu horeeyo inaad toosan tahay صح 10 dhaxana ee hawada ay kula kacdo هو اسكجي فتد oo بو iska fiican السلام عليكم ورحمة الله وبركاته العيال ميل بودين كجوكتان وولالكين ومحمد عبدو محمد يوسف إيو walaashina Maryama soo dhawaada walaalaha qaaliga meel baa adduunka aad ka joogtiin halkan naga daawanaysaan waa دعوة فاميلي ما شاء الله أصحابتا سودو هذا اللي نهاي مركلة مقال عصب واي سيتين في عنتين دمانتين وحدين ودرجينا إنا وذا في عنتين أنت حنوسن إلهي عفمات تاملها سيو أنت عفمات قبطنا عفمات كذا إلهي هاو زياديو أنا جاي إذن كبر دمانتين وحنو رجينا عمر ديري عفمات إيو واي سودو هذا اللي أنا أصحابتا وبرنامج كيني كصاب سنة bisha barakeysan ee Ramadaan Maryama barnaamijkeeni ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan magaciisa shicaarkiisu waa maxay barnaamijkan wuxuu la magac baxay ayaaman macduudaad ayaaman macduudaad Maryama ayaaman macduudaad maxaa ugu bixinay bal ka waran ayaaman macduudaad أيام معدودات وحنا وبحني مدام إيه بيش بركيسن إيه رمضان صح معلمة آد وكون معلمة ير وآد وكون صح إيه سيدس لأجل كذا يا وبحني تحسن إلهي القرآن كيسنا وشيء إنه بيش بركيسن إيه رمضان أيام ير معلمة ير وكون إيه صح تحسن إلهي القرآن كيسنا وشيء صح من الدريم يسد معلمها سأدك وير حدنا كون ما الدريم يسد وقت يقول عفين إذا بلا ويا أركيسا حدنا إذا دماتي صح واقفا marka ruuxi baraarugsan u baa ka faa'iideysan karno soo marka waxa ugu talagalnay barnaamijkan nafteeda in naftiinaba si aan ugu baraarujino maalmaha yar ee kooban inaan ka faa'iideysano waayahay insha Allah marka ayaaman macduudaad waa barnaamijkeeni bisha barakeysan ee Ramadaan maanta marka maxaa idin haynaa barnaamijkeeni ayaaman macduudaad insha Allah marka waxa idin soo gudbin doonaa Maryama dadka bisha barakeysan ee Ramadaan ee ka faa'iideysanayo waa labo صح qolo way ku guuleysanaysaa qolana ay ku khasaaraysaa ee kan faa'iideysana Maryama saadaad marka dadka aan ka faa'iideysanaynin Maryama maxaa keenay marka bil walba bisha barakeysan ee Ramadaan inaan ka faa'iideysan weyno ee nagu bilaabato ee nagu dhamaato taasi ayaa marka waxaan ku koobnay 10 arimood oo sababayo dadkaasi aan ka faa'iideysanaynin bisha barakeysan ee Ramadaan ee bil walba u soo galayso yani sanad walba u soo galayso ku dhamaanayso ayagoon ka faa'iideysanin waasan soo ma markay si dhamaanaysana insha Allah saadad marka waxa isdhaana marka 10 arimood ayaa sababi karo inay maxalla dadka ay ka faa'iideysan waayaan waasan soo ma mid uu horeyso marka Maryama maxaa keenay inay dadkii ka faa'iideysan waayaan bisha barakeysan ee Ramadaan mid ugu horeyso waxa keenayo isku diyaarin la'aanta صح waayo bisha barakeysan ee Ramadaan markay soo galayso waxa loo baahan yahay inaad isku diyaarisid صح biri Ramadaan waa kala carra waa la Soomaaliyeed صح يعني نفتي isku diyaarinta ma ahan midaan guriga la sharxayo raashin kala soo gadaayo guriga la hagaajinayo ma ahan صح isku diyaarinta waa midda nafta waay midda nafta hadaadan diyaarin ee naftaada Ramadaan diyaar aysan u ahayn صح kama faa'iideysan karto si walba صح soo marka nafti ina iskugu diyaarisid loo baahan yahay صح naftaada aad diyaarisid saas darteed nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu bish Shacbaan qofka inuu soonka uu ka soo bilaabo صح si uu iskugu diyaariyo Ramadaan soo maxalla bris uu qaadato nafti ala qabsanayso Shacbaanka inta uu sooman yahay صح 15 ka soro hadii uu ka awoodi kari maalmo uu ka soomo صح waxa yani wuxuu diyaar u noqonayaa inuu Ramadaanka uu qaabilo uu soomo yani naftiyo diyaarsan cibaadadii uu badsado quraan akhrintii iyo salaatu leelkii uu istaago intay Ramadaan ay soo galin si uu diyaar ugu noqdo taas ayaa laga wadaa diyaarinta nafta oo la iskugu diyaariyo bisha barakeysan ee Ramadaan soo marka qofka inuu ka faa'iideysan waayo waxa keento iskuma uusan diyaarin naftiisa diyaar ma aha soo marka taas ayaa keenaysa qofka inuu ka faa'iideysan waayo bisha barakeysan ee Ramadaan isku diyaarin la'aantaas ayaa keenaysa Abu Maxamed waaya qodobka labaad ee bisha barakeysan ee Ramadaan dadka inay ka faa'iideysan dadka qaar inay ka faa'iideysan waayaan waxa keenaya Abu Maxamed waayahay dadka qaarkood inay ka faa'iideysan waayaan bisha barakeysan ee Ramadaan Maryama waxa keenayo cilmi la'aan ayaa keenaysa Maryama waasan soo maahan bishii barakeysneedba oo aan jahli aan ka qabno waasan soo ma yani aqoon uusan u lahayn bisha barakeysan ee Ramadaan waasan soo maahan qiimaheeda fadligeeda waxa laga doonayo dhan
wixii jibinay wixii maxal aan jibinayn kulli uu qofku maxal uu qaafil ka yahay وأنا سوما وجهل وكجسونيا هذا أمريما أين إسكت دين هذا إن محلها جهلي عن كبحنا أو أمبرنا قرمي لبرتا أمريما واسد هذا الشيء يسيو بيش أنت سنكون صوت دلنين باو حلدونا يا هذا إن علم ويلة بيشي بركسين إيه رمضان لأن الشيء مركا علم ولا هاي مركا هذا علم ولا هين وكل دوان تاه وأنا سوما شقد ما أنت أدكسي سيد شقد أذن كسين لوديو تدرني متى أكسيسيد وأنا سوما رمضان كمان كوكايد دونانا يا رمضان كمان كسيف عن أجرني سيد وأنا سوما أود علمي أولاد هاي وأنا سوما مير بأجر كاجي إيمانه وأنا سوما هن وطول محلها يأد وقف إذا سنة لهاد كم جي فنيسيد لأنه هو أكتها فائدة كجرتا أكتها وأنا سوما علمي أد أولاد هاي مركز قف علمي أوله يقف عن علمي أوله لوضب اسكو مد معن قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون تاسو حكيني سامرك إن كفائدة يسوي لأن شيء ما بقرنه إنه بن آدم شيء وسنقرنه كو أسيع عدوكوا وأنا سوما مريمة تاسا مركو حكيني سا إن كفائدة يسوينه بشبركيسن إيه رمضان متى دعاء هذا أقدم إنه مريمة أصله ذا هي وينقني سا مريمة ضد خاركود إن كفائدة يسويان بشبركيسن إيه رمضان محاكمة إيه قعان لعان صح قفك إنه سن قعان له لا إيمان صح ولا إيمان صح waayo go'aankaas wuxuu gaarsiin karaa inaad bisha barakeysan ee Ramadaan aad ka faa'iideysato صح inaad go'aan la imaatid go'aan adag maxallaha go'aan ku gaartid bishaanay 30 bari ama 29 bari inaad ka faa'iideysatid naftaada oo ku adkeysid waayo naftu waa sidii caruurtii oo kaleeto waxa aad ku adkeysid oo aad ku celcelisid way la qabsanaysaa صح waxa laga yaabaa go'aan la'aantaada 10 bari ugu horeeyo inaad toosan tahay صح tawanka dhaxana ee hawada ay kula kacdo oo iska jiifatid oo iska seexatid صح صح waxa kaloo laga yaabaa tawankii u dambeeyay oo maxallaha nabi sallallahu alayhi wasallam oo maxallaha hoos guntigiisa adkeysan jirayna haddana ina saa kugu dhaafto shanta bari ugu horeysa ama labada habeen ugu horeyso inaad dadaashid habeenihii dambe aad seexatid ama aad tira ku socotido صح maalintii la dhahay leeyatul qadarka aaraysid saas lagu ma helo leeyatul qadarka nafsirkiisa صح waxay u baahan tahay go'aan inaad lahaatid inaad go'aan ku qaadato inaad ka faa'iideysto maalinta ku dhalato ilaa ay ku dhamaato ilaahina uu tala saaratid waayo faa'iida azamta fatawakkal ala Allah صح marka inaad ilaahay tala saaratid ilaahina aad barisid oo ducada aad ku dadaashid صح waayo xoog iyo xeelad anaga ma lihin ilaahina ku kaalmay maaha صح ilaahay ku kaalmay wax walba aad ma qaban kartid ma dhihi kartid saana sameyn kara ilaahay ku kaalmay ilaahina ka barisid inuu kuula kaalmeeyo bisha كفائديسيد go'aan adagna la imaatid صح marka waxa isdhihi karaa qofku wuxuu saaga faa'iideysan karin go'aan la'aantiisa soo go'aan yeelo go'aan adag yeelo ilaahay uu tala saaro taas ay faa'iideysan kartaa taasina waa qodobka saddexaad hadaba waa maxay Abu Maxamed qodobka afaraad waayahay midda afaraad Maryama go'aan qaadashadii ya waxa ka sii daran haddana Maryama waqti dhumis midda afaraad Maryama waa waqtiga qofku uu toos u dilay وأسان صومها وأسان صومها رمضان كي محيط بش إنها كفائدة صومها وقتيذا خاردت كأهستان مريم ولدونا إنها كفائدة استان سيدي الضياع عيان مريم دتك خار كود واد ياويسا وأسان صوم بل وحاب لسليها مريم الصباح وركالي يا وقتها بكسور مننا أنت مغرب لقى جارة يا وحا وقت إسكاكلو منها سميننا كالي طرق إلا ديلو دبلد لا ديلو لا دو لا ديلو ها واحد مسلسل لا فيرسدو waxaas oo problemka jiro xawaayb bisha Ramadaan markay dhalatay musalsalkan bisha Ramadaan ku saabsan yahay waa soo hagaajiyaba waa bisha lagu soo beegayaa aad u xuntahay aad u xuntahay saadad marka Maryam marka waqtigii oo saa loo dayaco ayaa waxay keentay marka qofka inuu ka faa'iideysan waayo bisha barkaysan ee Ramadaan waa isaan Sooma laan waqtigiisa asigoo u jeedo dilaya xagee gelinaysa marka waqtiga waa isaan Sooma waqtiga waa midka aad ku nooshahay وأنا صوما ما أنت هذا وقت يا جها وقت يا جواب عمري جاها قف عمري يسكون ديلها كورا عمرهم وأنا صوما صدقت خار كود مركب بيش كفائدة سنة وقتي ووقتي ويرجع ورأينا مع المكوبن وركفائدة يسوع عمري ما قف مؤمن لبش بركة رمضان كفائدة سنكر إلا أنا قبل ذيك دمانتين وأنا صوما عمري ما لو قفنا من كفائدة سنة يا مو مت منافق وأنا صوما qofka dadka istustusa waa isaan Soomaa bisha barakeysan dadka mugtaa u jeeleeyeen
وأيضا صومها صلاة حود كنا هلو أركو تراويح هو هذا تراويح هذا هلو ده تهجد حود كنا أساس هلو ده أساس هلو ده ساعات هذا قف نوع أسدات هاي كمان ميتهد وأيضا صومها dadka ka faa'iideysanaya وأيضا صومها عمل كإلهي فيه سوين هوين كيسه وحده فإنه لي وأنا أجزي به وأيضا صومها صوم كانوا يسوقنا هذا أنا كان أول مرة تسبحنا أول مرة نوعي إلهي كبحين كرا سورة سعد هرت وأيضا صوم كاس إلهي سأقبلن قاذا أو حليدا وارلمينايا وأيضا صومها وقتي كدلايا بشي ساس كوغلا مات وأيضا صومها وقتي جاجا ومعلمها كوانه كفائدة عمري جاجا لأن بش سنة كده من هذا جارنا لقيها وأيضا صومها إن هذا لما يستنى بيش عم بركز على مدة عادي عكرت وأيضا صومها ممكن من لو سجوا سادا وقتي جاجا إن هذا لما يصير إسكيل عليه وأيضا صوم مريم taasi marka ayaa waxay keentay inaad ka faa'iideysan weyno bisha barkeysan ee Ramadaan soo waqtigaaga ka faa'iideyso taasina waa midda afraad oo Maryama waxa is leedahay midda shanaad way noqonaysaa oo Maryama midda shanaadna waxaa ka mid ah qofka inuu salaadaha dayaco sax waayo salaadihii waxaa laga yaabaa xalay dhan inaad salaada u taagneed ama taraawiixdii aad u taagneed sax taraawiixdii markaad soo dukatana qaybtii dambe yani waqtigaaga musalsalaad iyo waxaa ku dhumisay suxuuratay salaad subax markay qariib ahayd inaad seexatid sax meeshaas maxaa ku dhaafay waajibkii weynaa ka tagtay ku dhaafay labadii ragcoo sunnada oo markii uu qofku uu dugtay nabi sallallahu alayhi wasallam uu dhahay adduun iyo wixii dhex yaalo dhan ay ka qeyr badan tahay ayadana ku dhaaftay sax yani maxaa faa'iido marka waxaa faa'iido malaha sax marka salaadaha inaa ilaalisid ayaa aga faa'iideysan kartaa shanta waqti oo salaada oo ilaahay kugu leeyahay oo faralka inaa meel aad saartid taasna waxaa meel ku saari kartaa sunnooyinka 12 ragco oo sunnada ah inaa adkeysid oo soo hormarisid sax waayo markaas salaad subax sunnadeeda aad tukatid salaad subax yani ma ku dhaafaysaa leen diyaar u tahay doorkiina saas diyaar u tahay doorkiina markii aad intaana la aqamin ka hor sunnooyinkiisa aad tukatid asna kuma dhaafayo diyaar u tahay inaad tukatid sax okay casarka sunno ma lahan laakiin waa ilaalisa sax ilaahina wuxuu leeyahay xaafidu cala salawaati wasalaati alwusta sax salaadaha ilaaliya khaasatan salaada dhexe ee casarka salaada casarka waxaa loo baahan yahay qaasina uu ilaalisid sax dumarkeena waxaa laga yaabaa inaan jikadii aan ku wada jirno afurkii aan karinayno sax afurkii intaa ku mashquulsantahay waxaa laga yaabaa salaada casarka inay kaa daciifto ama saasay kugu dhaafto oo maqrabkii lagugu aadamo intaa sambuus iyo bur iyo maxaa dhahay adduun aad diyaarinaysid ha ogolaanin wax kastoo dabka kuu saaran deji salaadaada aad sax waayo maalmo yar waayo ayadaba marka salaadaada ilaalinaysid wax walbana way ku fududaanayaan soo marka salaadaada hormari sunnooyinka ku dadaal habeenkii leelka inaad taagnaatid oo qiyaam leelka inaad taagnaatid badi soo marka saas ayaa aga faa'iideysan kartaa laakiin salaada haddaad dayacdid camalkaaga dhan waa dayacmay taasina waa qodobka shanaad qofka inuusan ka faa'iideysanaynin waxaa keenaya inuu salaadihii dayaco abu maxamed waa maxamed midda lixaad Maryama waxa waaye waa meesha lagu baaba'ay waasan sooma waa meesha lagu kala haray waaye waasan sooma midaasina waxa waaye